Asalaamu calaykum kulanti wanaagsan kusoo dhaw muuqaalkii sideedaad oo ka mid ah casharada asaaska Photoshopka dabcan todobadii video oo hore aan soo qaadanay haddaad soo daawatay waxaan kusoo dhiganay asaaska Photoshopka workspace adigoo gaara qaabka u samaysan lahay toolska qaabka loo isticmaalo lahaa layerada qaabka u shaqeeyaan shortcutyo kooban oo asaasi ah oo u baahan yahay qofka baranaya ama asaaska Photoshop maraya muhiim u tahay dhammaantoodna waxay ahaayeen asaaska Photoshopka oo qofkii markaas bilow ah muhiim u ahayd inuu soo maro dabcan haddii aadan soo daawan aad bay muhiim u tahay inaad soo daawatid si haddii aad Photoshop ku cusub tahay oo aadan soo daawan todobada muuqaal waxaan kugu dhiirigelin lahaa inaad soo daawatid waayo wax badan baad ka soo fahmaysaa asaaska Photoshopka muuqaalkan sideedaadna wuxuu noqon doonaa muuqaalka u horeeya oo noqonaya muuqaalka koowaad ee qaybta labaad ee essential practice-ka marka waxaan gaarnay waqtigii aan asaaska soo gudubnay oo aan shaqayn lahayn dabcan essential practice waxay kaaga baahan tahay inaad waqti dheer siisid oo wixii gacanta ka shaqaysid oo maxaan ku raahdaa si aad u fahantid maadaama ay tahay mid tii hore xoogaa ka yar adag tii hore base bay ahayd laakiin tan xoogaa waxay u baahan tahay shaqo inaad gacanta ka qabatid ama maxaan ku raahdaa waqti ku bixisid muuqaalkan wax ku qaadan doonaa wax loo yaqaan selectionka ama markaad wax select gareynaysid Photoshopka selection markaad sameynaysid dabcan Photoshop waxay ku shaqeysaa selection wax kasta aad wax ka bedelaysid inaad dooratid kadib aad markaa wax ka bedeshid marka selection joogno selection markaan wixii doorano waxaan sameynaynaa inaan color ka bedelno inaan maxaan ku raahdaa goyno oo meesha ka saarno inaan gradient gelino inaan koobino inaan size-kiisa weyneyno waxyaalo badan boo selectionka kadib aan sameyn karnaa waayo wax kasta oo u baahanayna wax ka bedelno waana select gareynaa markaan select gareyno baan color ka bedeli karaa weyneyn karnaa qaabkaas oo dhan u isticmaali karnaa marka san u soo furno select u bilowno casharkeena waxaan u baahanaynaa soo furno folderkii aan ugu talagalnay tutorialkan waxa tagaysaa folderkii uu ku jiray casharku waxa ka soo dooranaysaa qaybtii labaad bay noo bilaabatay essential practice waxa ka soo dooranaysaa selection oo cashar koowaad oo soo furaysaa markaad soo furtid wax ku soo baxaysa dabcan muuqaal caynka oo eeg muuqaalkan marka selectionka aan ku bilaabaynaa selectionka waxa laga sameeyaa badanaa selectionka marka sameynayso waxa laga sameeyaa labada tool ee u koreeya oo marquee toolka lasso iyo kan kale oo saddex tool weeye saddexda tool ee u koreeya baa laga sameeyaa selectionka 90% markaan wax dooranayno waxa selectionku uu leeyahay waxyaalo common oo isaga ka wada dhaxeeya tusaale ahaan markaan wax select gareynayo meeshan kore control bananka oo isbedelaysa waxayna awood ii siinaysaa inaan waxyaalo features dheeriya hadba toolkan doorto ay ii suurtagelisay inaan ku darsado selectionka marka wuxuu leeyahay wax loo yaqaan inaad wax select gareysid marka aad wax select gareysid oo saa wax u select gareysid inaad waxna ku dari kartid waxna ka jari kartid wax dheeriyana ku sii sameyn kartid marka waxyaalaha commonka ka mid yahay selectionka oo dhan ay ka sameeyeen bay ka mid tahay tusaale ahaan haddaan rectangle-kan soo qaado oo ku jiido meeshan kore ee selectionka control panel-ka markaan tago waxa ii muuqanaysaa box laba rectangle isku dhagan xag kale waxa ku muuqan laba rectangle iyaga mid saddexaad baa ku sii dhex yaala marka rectangle-da halkaas selectionka waa option ay ka sameeyeen dhammaan saddexda selection oo mid walba uu leeyahay arkayna qaabka uu yahay marka waxaan u isticmaalaynaa kan koowaad addition haddaan u baahdo go'taan intaas oo kale ku select gareeyo wax inaan wax ku daro waxaan tagayaa kana soo qabanaya tan waa ku daraya saasaan u select gareynaya haddaan u baahdo inaan wax ka jarana kana soo qaadanaya saasaan uga jaraya haddaan u baahdo inaan intersect sameeyo ama laba selection meesha iska galaan bas inaan selection ka sameeyo kana soo qaadanaya then selectionkii hore ee ii sameysnaa tusaale ahaan selection baa halka iga sameysan haddaan rabo inaan selection kale iyo soo qaado oo labadooda selection dheeriya ka dhex sameysto kanun baan soo qaadanaya isna koona u sixiga markaasaan waxa selectionka igu haray inta labada selection u dhaxaysa intersect ah click markaas square dhexe baa soo baxay haddaan mid kale sii sameeyo intersect kale dhexdiisa ku sameeyo dabcan inta ay wadaagaan baa soo baxaysa koonaha kale uu haraya
intaas ay soo baxaysa. marka waa ka sameeyeen in addition wax ku dari kartid, inaad selectionkii ku select garaysna wax ka jari kartid, iyo inaad intersect sameyn kartid oo laba selection meesha iska galaan bes aad kala soo bixi kartid. taas common bay ka yihiin inaad selection ku sameyn kartid oo waxyaalo badan bedelan sameyn kartid, addition, subtraction, waxaas oo dhan sameyn kartid bay ka sameeyeen. marka selectionkii qaabkan u sameynayna waxay tahay tusaalahan kan u horeeya waxa la dhahaa marquee tool wuxuu qaybsamaa 4 xabo. 4 xabo waxay tahay marka laba useful, labada kale waa iska additional, sometimes waa rare inta la isticmaalo aad bay u yartahay. marka labada common ka oo badan la isticmaalaan sameynayna rectangle ba u horeeya. rectangle-ka markaad wax ku select gareynayso waxa baahan tahay isaga soo dooratid, kadib markaad soo dooratid aad ku bilowdid meesha aad rabtid inaad ka bilowdid, inaad inta tagtid aad markaad ku jiidid dab baan siinaya. waxaan fiirsanayaa calaamada crossta ah labadeeda centerkeedan ka bilaabay, meesha plus iska dhaafaan buu selection ka bilaabaya. haddaan kor u wadona kor buu ka aadaya, haddaan dhinaca u wadona dhinac kale ka aadaya. hadduu dhinacaan wado buu u aadi doonaa 4 koone, laakiin mar walba wuxuu ka bilaabmaya centerka, halkaas x tay way iska jaraan. marka waxaan ku bilaabayaa rectangle-ka ii muuqda oo color kale baan ka bilaabayaa dhexdiisa, isaga select gareynaya, saas oo kale aan ugu jiidaya. waa jiidaya dabcan mouse-ku selection-ku wuxuu xataa oo leeyahay information ku siinaya inta selection garaysay cabirkeedu ku siinaya width iyo height. halka mouse-ku ka arki kartaa tira la socoto cabir centimeter ahaan u qoran 2.6 cm qaabkaas ku siinaya. marka wuxuu estimate ka siinaya ama exact cabir ahaan ku siinaya inta select garaysay cabirkeeda intay tahay, si aadan ku fududaato inaad markii waxyaala size ku tacalluqa aad select gareynaysid. marka qaabkaas aan u select gareynaa, waxaan select gareynaa waa soo jiidanaa ilaa iyo waxaan wadaynaa meeshaan u baahanahay inaan geeyno u baahanahay baan ku select gareynaa. waxa laga yaabaa selectionkii markaad saas oo kale u sameeysid, tusaale ahaan markaan soo select gareyno inuu saas kale naga noqdo, selectionkii saas u noqdo. marka waxaan u baahanahay inaan move gareyno oo ku aadino rectangle-ka. waxaad u move gareyn kartaa inaad isaga dhex tagtid, isaga inta dhex tagtid aad caadi u move gareysid. marka ku aadisid wax kale isticmaali kartaa falaaraha mouse, falaaraha keyboard-ka ee computer-ka ba 4 koone ugu wadi kartaa iyo qaabkaad u baahan tahay baad isticmaali kartaa. tusaale ahaan markaan dhexdii ku aadino haddana si fiican u fiirisid rectangle-ka qayb baa naga dhiman inaan wax ku daraan rabaa anoo aan kan selection ka qaadin. waxaan tagayaa addition baan soo dooranayaa, markaasaan ku darayaa intaa kalena way igu dar ilaa intaas oo kale aan ku darayaa. dabcan intaa waa ku darsaday. waxaan isticmaalayaa addition baan soo qaatay, markaasaan isticmaalo ku select gareeyay. haddaan aan addition soo qaadan rabaa inaan isticmaalno waxaan qabanayaa shift computer-kayga. shift markaan qabto dabcan plus sign ay soo baxay, si fiican u fiiri mouse-kaaga. plus sign markay ku soo baxdo waxay ka dhigan tahay selection-ka ku dooran baad wax kale ku soo dari kartaa. tusaale ahaan haddaan shift qabto oo intaa ku jiido ilaa intaasaan ku daray way ka dhigan tahay. markaan meeshaan u baahnaa geeyo baan sii deynayaa. qaabkaasaan shortcut ahaan ugu sameyn karnaa addition-ka. marka selection-ka qaabka u sameynayso waxay tahay meesha u baahan tahay ka bilaabayso oo ku soo jiidaysa. haddaan u baahdo inaan sameeyo kan circle-ka qaabka u sameynaya. marka circle-ka marka wuxuu u shaqeeyaa waxaad u baahan tahay inaad soo qaadatid elliptical marquee tool-kii. inta kan qaabkaad u soo dooranto waxay tahay right click baa siinaysaa ama cabaar baa haynaysaa click-ta, marka ku soo baxo baa soo dooranaysaa. isagu markuu ka duwan yahay kan geeskiisaan ka bilaabay, laakiin kan gees ma laha. problemka jira kan wuxuu ahaa gees caadiya marka, laakiin kan gees ma laha. gees ma hadduusan lahayn xagee ka bilaabayna? haddaan halkaa ka bilaabo uga yaraanaya dhan kale uga baxaya. marka waxaad ka bilaabaysaa qiyaastaada waxaad ka bilaabaysaa gees ahaan. marka isaga laga dhigo wax geeskiisa waxay ku dhamaan karaa halkaa. haddaan ka socdo halkaa hadduu socdo halkaas ku dhamaan karaa soo ma, kanna halkaas ku dhamaan karaa. halkaas kalaan ka bilaabaya. marka waa soo jiidayaa waxaan keenayaa xoogaa naga durkay soo qiyaasta meelahaas kale ku aadi, soo kor u yar qaad waliba soo halkaas kale ka qabanaya waa ku soo jiidaya. marka qaabkaasaan maxaa ku dhahay circle-kana u select gareyn karaayo selection-kii. marka uu igu noqon karaa wax selection-kii igu kor saaran. marka selection maxaa u garanayaa? selection waxaa u garanaysaa dabcan Photoshop waxay ku tusaysaa wax yar oo wareegsan oo dhibca oo saa markaad wax select garaysid saa u wareegsan. selection-kaasi dhibcahaas waxay ku tusayaan inaad intaa select garaysay. oo dabcan haddaan rectangle soo isticmaalo maxay noqonayaa selection-kayga wuxuu noqonayaa
dashed line iska daba wareegaya cadaan iyo madow wuxuu noqonayaa wax rectangle haddaan oo soo isticmaalo sidoo kale iyadana selection wuxuu noqonayaa oo qaabkaas marka selection ku tusinaya waxa select gareysay haddaan u baahdo inaan polygon-kan maxaan ku dhahay ka lix geeslahaas oo kale haddaan u baahdo inaan select gareeyo waxaan isticmaali karaa rectangle ma isticmaali kartid waxaad u baahan tahay inaad tool kale isticmaasho dabcan waxaan isticmaalaynaa toolkan lasso tool la yiraahdo lasso tool wuxuu ka kooban yahay saddex kan waa koowaad waa selection hadaad free hadaad dooran kartaa saas oo kale aad u wadi kartaa oo meel si maxaan ku dhahay goobaha hadaad u baahan tahay inaad select gareysid qaabka u select gareynaysa hadaad u baahan tahay inaad polygon-kan oo kale select gareysid wax soo qaadaysaa mid polygon nala jira kaas oo kale soo qaadaysaa waxaan ka bilaabaynaa geeska marka click baan siinaynaa waa jeedinaa ilaa halkaasaan select gareynaynaa kana waa jeedinaa ilaa halkaasaan click siinaynaa halkaas oo kale aan click siinaynaa qaabka u sameynaysaa waxay tahay marka click inta siisid hal mar baa click siinaysaa meesha kale u baahan tahay geesid baa click siinaysaa geeska kale geynaysaa click baa siinaysaa saas u wadaysaa marka qaabkaas u select gareynaysaa isagana polygon-ka qaabkaas u select gareynaysaa selection bobsiis oo kale markaad u baahan tahay waxaad isticmaali kartaa labadan tool ee hore markaan ka nimaadno waxaan isticmaali karnaa halka waxa ku jira laba kale oo quick selection la yiraahdo selection toolska marka waxay ku sameynayaan inaad hal mar wax select gareyn karto tusaale ahaan kan oo kale ii door hal mar baan select gareyn karaa saas oo kale u select gareyn karaa saas oo select gareyn karaa hal mar buu selectionka ay sameysmaya kan oo isagoona sidoo kale kuwan qaabkaas marka selection ku sameyn karnaa isla tool kala magic wand la dhaha ku jira isagana oo isla qaabka u shaqeynaya hal mar click si wixii isku kala hal mar detect garanaya isla markaas aad selection ku sameynaya kana saas oo kale saas ku sameynaya marka hadii aad rabto inaad wax dheeri ku sii dardartid oo additional add baad dooranaysaa kadib baad sii select garanaysaa kaas ku daraysaa kana ku daraysaa lugta kana ku daraysaa meel kalena ku dari kartaa darajada saas selection ku sameyn kartaa marka selectionka haday markaan soo bilaabeynay waxaan sheegnay inaan selectionka wartaan wax select gareyno aan maxaan ku dhahay toolkii wixii aan select gareynay aan wax uga bedeli karno ama maxaan ku raadayay ama color ku sameyn karno ama cut ku sameyn karno jari karno ama size-kiisa weyneyn karno marka waxaan u baahannahay kuwan inaan u ekeysino kuwan khafiifka ah saddexda inaan u ekeysino saddexdaas hore colorkoodu fuulka yahay waxaan u baahannahay marka inaan soo doorano mid walba toolka ku habboonaa tusaale kan oo kale waxaan u baahanahay inaan select gareeyo saan u select gareeyo wax soo qaadaya rectangle-kii geeskaasaan ka bilaabayaa ilaa gees kale waa wadaya qaabkaasaan u select gareeyay marka waxaan u baahanahay inaan color ka bedelo colorka saan uga bedelo waxaan u baahanahay inaan soo qaato toolkan colorka uga bedelayay toolkan colorka uga bedelayay waa soo wax ka heli kartaa tools baad tagaysaa wax ka dooran bane bucket tool baad soo qaadanaysaa bane bucket tool markaad dooratid waxaad iska hubisaa oo mar walba muhiim tahay inaad maskaxda ku haysid inaad layerska ka dooratid waxaad maxaan ku raadayay wax ka bedelaysay hadda wax layer inoo doorna marka waxba kama bedeli karna ka dhiganta meel cidla inaan wax ka bedelno ma dhici karto marka kan oo kale hadaan doorto waa sameyn karaa kan oo kale waa sameyn karaa laakiin waxaan u baahanahay inaan kuwa wax ka bedelo marka waxaan rabaa inaan selectionkii maadaama meel cidla ay u samaysan yihiin inaan layer cusub keensado layer cusub saan u keensado waxaan dhahayaa control shift n baan qabanayaa oo halkaasaan layerka magaciisa gelin kadib baan sameynaya ama waxaan click siin karaa halkaan oo kale markaas waxay soo baxaya layerkii haddaan waxaan u baahanayaa marka inaan kalareeyo qaabkaan u kalareynaya wax tahay waxaan soo qaadanaya bane bucket toolka markaan soo qaato dabcan colorkii uu ii wada laakiin waxaan iska hubinaya colorku ii wado wuxuu yahay halkaas foreground-kaaga tegaysa foreground wuxuu ku tusin karaa oo halkaa kaa tusaya in aad colorka wato uu yahay colorka maxaa ku dhahay jaalaha khafiifka marka saan u bedelo click si waxaan dooranaa marka halkan colorka dooranaa halka hadaan ka weyno waxaan u baahnay kaamid u eg marna exact ka u eg marka banaanka uga baxaysa wax ku soo baxaya airdrop toolka oo ah colorka qalinka colorka lagu doorto click baan siinayaa colorka waa ii doormayaa sidiisii exact ka ruuxiisa ii doormaya dan baan waxaan leeyahay okay marka dabcan colorka waa wataa hadda hal mar baan click siinayaa marka layerkiina waa ii doonaya layer cusub ay samaysan halkaas waxaan rabaa inaan ku sameeyo field-kii caadiga oo colorkii ku shubo dag baan siinayaa qaabkaasaan u sameeyay oo u kalareeyay kana isaga sidoo kale marka waxaan u baahanahay selection kale inaan soo qaato hal mar haddaan selection kale soo qaato ama aysan ii doornayn plus ama minus ama wax kale haddaan meel kale click siiyo selectionkay waa baxaya
automatic uu ka baxay halka iyadoo ii select garaysan haddaysan plus ama minus ama intersect midna ii doornayn ama aan shift qaban ama alt midna aan qaban dabcan waxaan selectionkayga hore waa baxay adaan hal mar jagsiyo kii waa ku daayay marka qaabkan selectionka ay uga qaadayna waxay tahay kan oo kale inagoo aan waxaan meel kale click inaan selection ka qaadno waxaan qabanaynaa control iyo d waa deselect selectionka waa ka baxaya marka waxaan u baahanahay kanna inaan select garayno inaan u samayno isagana wax loo yaqaan colorkii u samayno waxaan soo qaadayna polygonkii sidoo kale isagana dooranayna dabcan waa dooranay waxaan u baahanahay marka inaan kalarayno qaabkan u kalarayno isla sidii weeye colorkii aan ka dooranayna kadib baan wax soo qaadanaa back toolkii hal mar baan click siinayna qaabkaas uu kaasna u samaysmay kana sidoo kale waxaan u baahanaynaa isagana select garayno oo colorkii bedelno sidiisii hore halkaas kala ka soo bilaabaysaa waa ku dharaagaraynaysaa ilaa meesha u baahan tahay goorta geysid ku aadisid baad dabcan waxaad ka bedeli kartaa colorkii oo waxaad ka dhigi kartaa colorkaad la rabtay kaas kale aan u baahanahay isagana sidoo kale u dooro okay si back ka soo qaado hal mar click si qaabkaasaan isagana u kalareeyay oo aan u sameeyay colorkii u saaray marka inta markaan select garayno selectionkana qaabkan uga qaadaynay hadaan ku celino input halkaas intaas kale ii select garaysan tahay waxaan rabaa inaan selectionka iska qaado control d baan dhahayaa qaabkaas selectionka uga baxaya waxaan u baahanahay marka tusaale ahaan kan oo kale hadaan saa u qabto waa layer gooni aan meel ku dhaganayn halka kuwan ay background ku dhagan yihiin laakiin isaga waa layer gooni la taagan dan u baahdo hal mar inaan isaga selection hal mar wada select gareeyo tusaale ahaan maadaama uu layer kaliya yahay layerka meesha uu layerada kaga jiraan tagayna layerska inoo muuqda dabcan bakayla waa kaas uma waxaan rabaa inaan hal mar kaliya select gareeyo aan kuwan toolskan iyo waxaas oo dhan isticmaalin waxaan dhihi karaa control inta qabto baan layer thumbnailka halka layer iconka isku jiro baan hal mar click siinaya dabcan control markaan qabto waxa ii soo baxaysa fiir iconka gacanta ah wax fuulaya wax yar oo square ah kaas wuxuu ka dhigay inaan layerkii select garaynaysa dan control hal mar click siiyo dabcan selection baa soo baxaya oo layerka fuulaya click markaan si maxay soo baxay selectionkii baa caadi si wax u fuulay maxaan ku raahday automatic hal mar marka qaabkaasaan waxaan u samayn karnaa layerka cilada taagan selectionkiisa hal mar baan u select garayn karnaa ka waran haddii tusaale ahaan aad samaysid selection maxaan ku dhahay tira badan waqti dheer kaaga baxo oo kan hadda selectionada waa fudud laakiin selection complex ah oo maxaan ku dhahay meel qaloocan oo dhib badan hadda samaysid tusaale ahaan oo aadan rabin inuu selectionkaas ka dhumin طبعا Photoshop waxay leedahay oo samayn kartaa in selectionkii aad samaysay aad save garaysan kartid meel ku kaydsan kartid sida hadhow dib ugu isticmaashid marka waxaan samaynaynaa kana select garaynaynaa hal mar kan oo kale baan select garaynaynaa tusaale ahaan qofkan halkaa taagan sii jeeda markaan selectkii ku samayno dabcan aan select garayno isagii oo uu inoo select garaysan yahay dabcan selectionka waa samaynay markaan selectkii samayno qaabka selectionka ugu dhamayno waxaan u baahnaa inaan selectionkiisa maxaan ku dhahay doorashada intii aan dooranay selectionkaas inaan save garaysano qaabkan u save garaynaya waxay tahay marka waxaan tagayaa select then waxaan halkaa ka fiirinayaa wax loo yaqaan maxaan ku rahday save selection marka hooseeya halkaas waxaan u bixinayaa marka qofka magacii aan selection ku bixinayn si qofka oo kale taas ka magaca u bixi then saa u save garay qaabkaas marka u save garay oo selectionka u save garaynay saa ka waran hadii aan marka meel kale select gareeyo oo ka wareego waxaan u baahanahay selectionkayga soo ceshto marka selectionkiisa aan soo ceshto waxaan tagayaa load selection waxaan tagayaa select waan tagayaa kadib load selection baan ku dhufanayaa halkaas marka waxaan ka soo fiirinayaa maxaan ku dhahay selectionkii magacaan u bixiyay dabcan waa kan qofkaan u bixinay click markaan siiyo oo ay doormay waxaan samaynayaa okay baan dhahay marka selectionkii marka qaabkaas uu soo noqday qaabkaas oo save garaysan kartaa selectionkii complex waqti badan kaaga baxay dad badan waqti kale dib aadan ugu dhumin hadhowna saas u soo load garaysanaysaa oo la soo baxaysaa
muuqaalkii aan kaga hadlaynay selectionska iyo qaabka selectionka loo sameeyo intaas aan kusoo gabagabaynaynaa. dabcan waxa muhiima selectionkii qaabka loo select gareeyo inaad fahanto way fududahay, laakiin waxa muhiimada loo baahan yahay inaad waqti ku bixisid oo aad practice samaysid. waayo markaad practice samaynaysid iyo markaad dabcan wixii daawatid oo u qaadatid maxaan ku dhahay maskax ahaan, practice marka la sameeyo baasho waa adkaataa xoogaa waxay noqotaa in ay waxay run tagto markaas aad hadhowna aadan wixii practice samaysay aadan dib u ilaawin. marka muuqaalkan intaasaan kusoo gabagabayn doonaa. muuqaalka ku xiga waxaan kaga hadli doonaa sida Photoshop markaad joogto wax loo koobiyo isla markaana loo soo paste gareeyo ama file meel looga qaado meel kale loo geeyo. sidaa awgeed waa inoo kulanti doona xiiso leh.